haddaba markaan eegna buu leeyahay nolosha adduunka iyo universe-kan aynu ku noolay iyo ay sida bini aadamka ugu jaan go'an tahay wax kasta uu u baahan yaallo waxaanu leenahay buu yidhi waa kownun ucidda lana waa duni innaga laynoo sii diyaariyey waa duni cid garanaysa innaga baahiyaheenna markaynu bini aadam nahay baahiyahaynu leenahay oo dhan cid garanaysa ayaa jirta buu leeyahy waa ilaa marnaba suurtagal ma aha buu leeyahy inay dunidu u ekaato wixii aynu wax kasta ka rabnay mithaal ahaan waxay leeyihin dunida marka la eego maanta joogta anything مثلا dhulka waxay leeyihiin thicknesska dhulka qashra alardiya dhulka qoloftiisan sare haddii ay in yar bidcata aqdaam in yar foots yar hadday ka ballaadhan tahay intii ثاني أكسيد الكربون iyo oxygen ba isaga nuugi lahaa bay leeyihiin carbon dioxide iyo oxygen dunida korkeeda lagama heleen haddii labada laga waayana maxay nolol ma jirayso waxay leeyihiin hawadan dusheena saarane in yar hadday intan ka dheer tahay oo density-geedu markaa uu khafiifo space-ku in yar u dheeraado nayazigta asteroidska iyo waxaan soo daadanaya korkeena ku wada dhici lahaayeen dunida nolol kama jirteen waxay tilmaamayaan oxygen-ku intuu yahay hadday in yar ka badan tahay in helaac yaroo bilig yidhaahda dunidu way wada guban lahayd waxay tilmaamayaan cadceeddu hadday in yar ka soo dhawaato halkay maanta joogto waxa weeyaan dunida waxa joogo dhammi way guban lahayd hadday in yar ka fogaatana waxay leeyihiin dunida nolol kama jirteen yacni halka ay joogto ayaa waxay tahay meeshii ugu fiicnayd ee nolol ka jiri lahayd dayaxaad arkaysa bay leeyihiin halkuu maanta joogo hadduu in yar ka durugsan yahay nolol kama jirteen bay tilmaamayaan hadduu in yar ka dhow yahayna tideska dhulka badda tideska ka kacaa dunida dhammaanteed bay maanshayn lahaayeen ama waa qarqin lahaayeen wareeggu dhulku wareegaya 24 saacadood intuu wareega hadduu in yar ka gaabiyo bay leeyihiin intuu yahay dunida badhna kuleyl bay u dhiman lahayd badhna qabow bay u dhiman lahayd dhulku waa tilted 23 degree buu qalloocsan yahay hadduu in yar ka toosanaan lahaa bay leeyihiin dunida labada bowlunba roobku ku du'i lahaa inta dhaxana saxaaray noqon lahayd oo nolol kama jirteen everything bay leeyihiin dunida korkeeda saaran oo maanta yaalla haddaad istidhaahdo wax yar ka bedel waxa soo baxaysa bay leeyihiin in maxay ay u muuqanayso noloshu inaanay suurtagal ahayn walidaalika baa waxay leeyihiin dabayluhu noocay u dhacaan hadday in yar ka gedisnaan lahaayeen roobku siduu u doo hadduu in yar ka gedisnaan lahaa biyaha baddu hadday in yaro fuutisa kor uga qaadnaan lahaayeen biyaha baddu hadday ka dhanaan yaraan lahaayeen biyaha baddu hadday macaan noqon lahaayeen all this nololi ma jirteen taa macnaheedu waxa weeyaan bay leeyihiin dhulkan aynu ku nool lahay inuu yahay meel laynoo sii diyaariyo lagu talogalay bini aadam inuu iman karo jaadabiyada dhulku gravitational force-ka dhulku intuu yahay hadduu in yar ka durugsan yahay xayawaanaad yaryar baynu noqon lahayn quraanjada da'deedaynu leekaan lahayn ma korreen dhulkaa xoog inoo qaban lahaa hadduu in yar ka fudud yahay waa biibi lahayn qofkii dhulka kor uga kaca kuma soo noqdeen hawada iyo meelahaas ayuu iska qaban lahaa yacni noloshoo dhan waxay tilmaamayaan qaabkay maanta tahay haddii wax isbeddeloo yari uu jiro nolosha the four forces kay sheegaan electromagnetic force-ka ama ka jaadabiyada ama strong nuclear force-ka ama weak nuclear force-ka waa constantes that constantes haddii in yar laga bedelo bay leeyihin there will be no life nololi ma jirteen wax kasta oo la soo qaado waxay leeyihiin haddii wax yar iska bedelaan buuruhu haddii designka buuruhu ka gedisay caynka nololi ma jirteen hadday ka weynaadaan hadday ka yaraadaan nololi ma jirteen idan waxaa la tilmaamayaa wax kastoo noloshan korkeeda yaalla inuu ku jaan go'an yahay nolol bini aadam ilaahay ugu talagalay ilaahayna wuxuu leeyahay qutila alinsaanu maa akfarah baa ilaahay yidhi insaanka waa la naadalaya maxaa ka gaalnimo badan baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala awalam yara alinsaanu annaa khalaqnaahu min nutfatin faidaa huwa khasiimun mubiin bini aadamku miyaanu arag baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala inaanu ka abuuray min nutfa faidaa huwa khasiimun mubiin waaba mid doodaya oo wax kasta ka soo horjeeda sidaa
awgeed ayuha alikhwa masaladani waxay sheegaysaa uun iyadoo si kooban aan u tilmaamo waxay sheegaysaa mabda'a kani waa mabda'a le noloshu in laynoo diyaariyo innaga laynagu qiyaasay nolosheenna in lagu qiyaasay baa muuqata bay leeyihin waxaa kugu filan inaad akhrido aayaatu taskhiir waxa ay sheegeen oo dhan haddaynu qur-aan akhrino qur-aanka inagaga filan laakiin intayna qur-aanka akhrida ayaa iska yar